wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa baahisay in weerar lagu soo qaaday barteeda internetka maalintii Jimcaha ahayd 16 bishii Julaay ee sanadka 2021 waxaana weerarkaasi uu sababay in gabi ahaanba uu istaago adeega ay furin jirtay barta internetka ee wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Russia. wasaaradda gaashaandhigga ee Russia ayaa daha sidoo kale ka qaaday in weerarkan laga soo abaabulay dalka dibadiisa hase yeeshee uu u muuqdo mid guul daraystay isla markaana aan ku yeelan wax saameyn ah habsami u socodka barta internetka ee wasaaradda gaashaandhigga. burcadda internetka ayaa kusoo fatahay mowjado fayrasya si ay ula baxaan xogta wasaaradda gaashaandhigga oo ay ka mid yihiin magacyada shaqaalaha, iimaylada ay isweydaarsadaan shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga oo laga yaabo in ay ku kaydsanayeen halkaasi xogaha iyo macluumaadyada xasaasiga ah. lagama warqabo ilaa iyo iminka in lagala baxayo xogo muhiim ah wasaaradda gaashaandhigga ee Russia, hase yeeshee wasaaradda gaashaandhigga waxa ay caddaysay in ay ku guuleysteen inay difaacdaan siraha iyo xogaha ugu kaydsan halkaas. waxaase muuqata in ay ku guuleysteen kooxda weerarka soo qaaday inay curyaamiyaan howlgabna ka dhigaan hawshii iyo shaqadii uu furin jiray barta internetka ee wasaaradda gaashaandhigga ay ku lahaayeen. dhacdadan ayaa imaaneysa kadib markii toddobaadyadii lasoo dhaafay ay socdeen weeraro lagu soo qaaday shirkado badan oo Mareykanka ah. baraha ay ku leeyihiin internetka qaarkood ayaa la weydiisay lacago madax furasho ah si ay u helaan xorriyadooda. shirkadda Kesaya ee dalka Mareykanka waxa ay ku guuleysatay in dib mar kale ay u hanato isticmaalka caadiga ah ee barteeda internetka kadib markii ay bixisay madax furasho. waxaa weerarkan u muuqdaa mid argudasho ah oo ay doonayaan Mareykanku inay ku muujiyaan awoodooda tiknoolajiyadda internetka, inkasta oo aysan caddayn cidda sida dhabta ah uga dambeysa gulufkan. hay-adaha u qaabilsan Mareykanka tiknoolajiyadda internetka ayaa shaaca ka qaaday in ay ku bixinayaan balaayiin dollarka Mareykanka ah horumarinta awoodda difaaca ee internetka. horey Mareykanka waxa ay uga codsadeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in uu wax ka qabto kooxaha burcadda ah ee saldhigooda uu yahay dalka Russia iyo dalalka bariga Yurub, balse waxa uu ku gacan saaray arrintaasi waxaana uu sheegay in aysan jirin wax dhibaato ah oo ay kooxahaasi ku hayaan dalkiisa, isla mar ahaantaasna aysan jirin sabab ku kalifaysa dalka Russia in ay kooxahaasi ka hortagaan.